Cabdi Muriidi Dheere Ajakis maanta wuxuu inooga baahan yahay duco. Cabdi Muriidi Dheere Ajakis waa majaajiliste laga yaqaan ogeyiga Soomaalidu ay degto. Waa comedian, waa mutarjam muddo dheer kusoo guda jiray tarjumidda aflaanta noocyadeeda kala duwan. Waxa uu sidoo kale qayb ka soo noqday riwaayado badan. Haddaba maanta waa uu xanuunsan yahay waxa uuna ku jiraa isbitaalka Yardimeeli ee magaalada Muqdisho halkaas oo lagu dabiibayo xaaladiisa caafimaad. Shalay ayuu istaaga ka dhacay durbadiibana waxaa loola cararay isbitaalka Yardimeeli halkaasi oo koomo uu ku galay. Haddaba waa shakhsi inaga mid ah oo annaga aan aad u jecelnahay ee maanta inooga baahan duco iyo garab istaaga. Waxa uuna ka mid yahay jilaagan Cabdi Muriidi Dheere Ajakis, dadyowga ay Soomaalidu ku faanto magac ahaan iyo maamuus ahaan marka la tiriyo dunida shakhsiyaadka comedian-ka ah ee ku nool. Haddii uusan Ajakis number 1 noqonna waxa uu noqonayaa number 2 dadka sida gaarka ah looga ixtiraamo ogeyiga Soomaalidu ay degto. Mararka qaarkood waxaa lagu tilmaami karaa saxafi maadaama telefishinka caalamiga Universal TV uu ka qabto barnaamij lagu magac daray Faaliyaha Qaranka, isla markaana la yiraahdo fartaha isku fiiqin adiga kuguma foorartee. waxaan maanta u soo fadhiisanay walaalkeena Cabdi Muriidi Ajakis oo xanuunsan koomana ku jiro tiisiteena jumwa akhyaare aan u soo duceyno ducada waa muhiim waa aabba Soomaaliyeed waa majaajilisti Soomaaliyeed wax badan wadanka ma aragtay oo marxalad xun ku sugan wax badan oo sameeyay oo ma aragtay idinka qoslin jiray idinka farxin jiray maanta ilaahay ka sokow anagoo noo baahan yahay adinkoo idin baahan yahay dhammaan wuu noo wada baahan yahay asxaabta marka waxaan idin leenahay هلو سود عبد المريدي سود قادرك عافمات تامسيو آمين إلهي عافمات تامسي شير قرايا فيديوغان هلا شير قرايا ehelada Cabdi Muriidi Dheere Ajakis oo aan si gaar ah ula xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyay in isbitaalka Yardimeeli uu ku sugan yahay isla markaana uu ku jiro koomo. Soomaali weyn oo idinla waxa ay kaga baahan yihiin maanta inay u duceeyaan maadaama ducadu ay tahay waxa kaliya qofka bini'aadamka uu maanta awoodi karo oo aysan ahayn wax dhaqaale ku xiran. Haddaba dhowaan Cabdi Muriidi Dheere Ajakis ayaa u hanqaltaagay inuu qayb ka noqdo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxa uuna ahaa musharax ku dhawaaqay kadib casuumaadda uu sameeyay qaar ka tirsan odayaasha dhaqanka ee isaga matala. Mar waxaan xasuustaa saldhigga dhexe uu geeyay deeq uu ugu talagalay saraakiisha ciidamada asluubta ee ku sugan xabsiga dhexe. Waxa uu hami ka lahaa inuu qayb ka noqdo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee dadkooda wax u tara. Hami sare ayuuna lahaa waa uuna u hanqaltaagayay. Maanta haddaba daawadayaal qaybta commentiga waxaan si sharaf ixtiraam qadarin ay ku dheehan tahay inaan idinkaga dalbanaynaa inaad u duceyso maadaama uu yahay shakhsi qulubteena ku weyn laga yaabee inaad qayb ka noqotay riwaayado badan uu soo sameeyay inaad daawatay isla markaana waqtiyo aad murugeysanayd aad isku farxad gelin jirtay daawashada riwaayado markaasi uu dhigi jiray Cabdi Muriidi Dheere Ajakis. Ajakis marka la fiiriyo waa nin Soomaalidu ay aad u jecel yihiin magac ahaan iyo mansab ahaanna maanta aan ognahay meesha uu Soomaaliya ka dhex taagan yahay. waa qof aan aqoonin isla weyni laakiin lagu bartay ixtiraam iyo weliba dabeecad furfurnaansho leh. Allah ayaan kaga baryaynaa inuu siiyo caafimaad taam ah oo weliba helo kursiga uu u hanqaltaagayo ee golaha shacabka. runtii maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago arin nagu soo korortay oo aad u naxdin badan. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala cimri dheer iyo caafimaad iyo cibaado sugan hortaana wada siiyo dhammaanteena. Cabdi Muriidi Dheere Ajakis waa xanuunsan yahay kooma ayuu ku jiraa isbitaal Yardimeeli ayuu yaalaa waa lagu soo booday xaaladiisa sida ay tahay Allahu aclam. kaliya waxaan ula sheegay in uu kooma ku jiro cid bini'aadan aysan u gudbi karin hadda. waxaan halkan u soo fadhiistay wax kala maaha waxaan rabaa inaad ii soo duceysaan inaad u wada duceysaan in uu Ilaahay caafimaad
cimri dheer iyo cibaado suubanba uu siiyo qof kastoo muslim oo naga xanuunsanna ilaahay caafimaad ha siiyo walaalkeena ajakis aan u duceyno waa majaajilistaheena waa qof in badan na soo madadaaliyey waqti adagna nala soo qaatay nolosheena ilaahay dartiisa aan ugu wada duceyno wax laiskugu duceeyo ilaahay dartiisa wax kaga wanaagsan ma jirto ilaahu rabbi raxmaano inta muslim oo dhibaataysan dhibaatada ka qaad ilaahu inta caafimaad qabtana u ziyaadi waxaan maanta usoo fadhiisanay walaalkeena cabdi muriidi ajakis oo xanuunsan koomana ku jiro tiisiteena jin waaye akhyaaray aan u soo duceyno ducada waa muhiim waa aabba soomaaliyeed waa majaajilistii soomaaliyeed wax badan wadanka ma aragtay oo marxalad xun ku sugan wax badan uu sameeyey oo ma aragtay idinka qoslin jiray idinka farxin jiray maanta ilaahay ka sokow annagoo noo baahan yahay adinkoo idiin baahan yahay dhammaan wuu noo wada baahan yahay asxaabta marka waxaan idin leenahay ha loo soo duceeyo cabdi muriidi soo duceeyo aamiin ilaahay caafimaad taam ha sii sheergareeya fiidiyoogan hala sheergareeyo saaxiibayaal waa daawateen haddii aad nagu cusubtiina subscribe dhaha gambaleelkana furta si ay idiin soo gaaraan waxyaabaha xiisaha badan markaasi aan soo dhigno haddii aad horey inoola joogteen madaxaad inoo saarantii saaxiibayaal dhaliil ammaan bogaadin talo iyo tusaale haddii aad inoo haysaan qaybta commentiga inoogu reebo waan idin aqrin doonaa haddii allaha awoodda leh uu raalli ka noqdo waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe-ka aad noogu roonaataan waxaan gelaynaa oo aan rajaynaynaa inaynu hor u sii soconno idinkoo aan idinka dalbanayn inaad nagaasiisaan 100K oo subscribe-ka ahi waa nabadoonka youtuberada Soomaaliyeed xaaji duco idin leh muuqaalkan kiis xiga intaynu ku kulmi doono annagoo isku duuban waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas nabadgelyo runtii maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago arin nagu soo korortay oo aad u naxdin badan ilaahay subxaanahu wa tacaala cimri dheer iyo caafimaad iyo cibaado suban horta hana wada siiya dhammaanteena cabdi muriidi dheera ajakis waa uu xanuunsan yahay kooma ayuu ku jiraa isbitaal daldamiira ayuu yaalaa waa lagu soo booday xaaladiisa sida ay tahay allahu aclam keliya waxaa noola sheegay in uu kooma ku jiro cid biniaadanna aysan u gudbi karin hadda waxaan halkan usoo fadhiistay wax kala maaha waxaan rabaa inaad ii soo duceysaan inaad u wada duceysaan in uu ilaahay caafimaad cimri dheer iyo cibaado suubanba uu siiyo qof kastoo muslim oo naga xanuunsanna ilaahay caafimaad ha siiyo walaalkeena ajakis aan u duceyno waa majaajilistaheena waa qof in badan na soo madadaaliyey waqti adagna nala soo qaatay nolosheena ilaahay dartiisa aan ugu wada duceyno wax laiskugu duceeyo ilaahay dartiisa wax kaga wanaagsan ma jirto ilaahu rabbi raxmaano inta muslim oo dhibaataysan dhibaatada ka qaad ilaahu inta caafimaad qabtana u ziyaadi waxaan maanta usoo fadhiisanay walaalkeena cabdi muriidi ajakis oo xanuunsan koomana ku jiro tiisiteena jin waaye akhyaaray aan u soo duceyno ducada waa muhiim waa aabba soomaaliyeed waa majaajilistii soomaaliyeed wax badan wadanka ma aragtay oo marxalad xun ku sugan wax badan uu sameeyey oo ma aragtay idinka qoslin jiray idinka farxin jiray maanta ilaahay ka sokow annagoo noo baahan yahay adinkoo idiin baahan yahay dhammaan wuu noo wada baahan yahay asxaabta marka waxaan idin leenahay ha loo soo duceeyo cabdi muriidi soo duceeyo aamiin ilaahay caafimaad taam ha sii sheergareeya fiidiyoogan hala sheer